rabbi baa waxidaad wada taqaniini isagaa waduudahan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaanu ka hadlaynaa casharo taxana ah oo magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan marba magac uga hadli doono oo aan ka hormarinayno dhowr cashar oo horodhac ah oo inta aanan guda gelin sharaxaada magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka hormarinayno casharkanagan oo kamid ah casharada horodhaca ah waxa uu ka hadlayaa nafta bini aadamka Ilaahay uu sameeyay ee uu nafta geliyay ila yiraahdo nafta ama ruuxda noocyada uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qaybiyay waana nafta marka dambe aan rabno inay ku dhaqanto fahamto weelayso nolosheeda ku darsato habka loola falgalayo marka qofku muslimka uu barto magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin waxaan doonaynaa inaan cashirkan uga hadalno qofka bini aadamka ay ka kooban jir iyo ruux ama naf ka kooban naftaasu inta nooc ay quraanka ugu soo aroortay si aad u fahamto dabeecadaha dadka Ilaahay u kala sameeyay dabeecadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu khalqigiisa iyo dadkiisa uu abuuray uga digay adiga laftigaagana ay ku noqoto cashir aad ku fahamto qofka dabeecadiisa sidoo kale waxaan yara taabanaynaa naf walba nooceeda sida uu quraanka u cabiray iyo sidaas uu cabiray macnaha kooban ee laga fahmi karo ee lagu garan karo waxa ay tahay nafta nooceeda nafafta noocaas marka ay bini aadamku Ilaahay subhanahu wa ta'ala galiyay qaar waxa la yiraahdaa an-nafs al-ammaratu bis-suu oo ah mid garanaysa waxa wanaagsan ee haboon laakiin cagsigeeda sameynaysa waxa loo jeedaa al-ammara bis-suu waxaan inay xumaan yihiin way garanaysaa in laga tagana way garanaysaa oo waxa wanaagsan la sameeyo laakiin haddana waxay qasbaysaa oo ay ku qasbaysaa qofkii inuu sameeyo waxa aan haboonayn ee ah waxa xun sida darteed waa naf mar walba ku faraysa kugu dhiirigelinaysa qayb ka noqonaysa inay ku tiraahdo naftaadu waxaan samee oo ayada aad dareemayso inay ku dhiirigelinayso oo ay ku riixayso waa ka Ilaahay quraankiisa ku dhahay wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi sida darteed waxyaabaha laga magan galo Ilaahay subhanahu wa ta'ala bay kamid tahay in naftaadu ay noqoto naf ku hagaysa xagga xumaanta iyo khayr darrada iyo sharta ku hagaysa sida darteed qofka waxa ku xiran ee nafta ah waxa la rabaa inuu ka adkaado aysan noqonin naf amarta waxyaabaha khaldan mida la amaanay waxa weeye mida quraanku uu ku sheegay an-nafs az-zakiyya oo ah mida mar walba nafteeda ku talagalaysa inay nadiifiso oo ay daahiriso haduu khalad ka dhaco hore ka daahiriso iskuna dayda waxa haboon ee wanaagsan ee quruxda keenaya ee qaayaha keenaya ee sharafta keenaya inay samayso wata quraanku aragteen qala aqtalta nafsan zakiyatan bighayri nafs yani naftu marka ay daahir tahay oo ay dambi la'aan tahay oo barimageyda ay tahay oo waxba in loo geystaba aysan ahayn baa laga cabiray sida darteed waxa la rabaa adiga naftaada inaad gaarsiiso naf sidaas daahir u ah oo wanaagsan oo dhibaataba aan ka fikirin dhibaatana aan loola imaan karin nafta nooceeda saddexaad waxa la yiraahdaa waa nafta aakhiro kula doodi doonta ee ku maxkamadeyn doonta ee iyadu kugu marqaati furi doonta waxa aad dunyada ku soo gashay ee mararka qaar sheegi doonta wixii aad soo fashay markaad dunyada joogtay ama khayr ah ama shar ah oo iyadu kugu garqaadi doonta oo ku sheegi doonta waxa kale oo la yiraahdaa nafta mujaadalada la yiraahdo waa nafta qofka u dhashay muranka iyo qardadacda iyo maanta oo dhan aadan waxba ka dhaadhacsiin karin waxna aadan fahamsiin karin mararka qaarna insaanka dabeecadihiisa qaarkood ay ku jirto inay tahay naftu mid muranka jecel oo dooda jecel sida darteed Ilaahay waa laga magan galaa adduunyada inta joogtana inaad noqoto qof muran badan oo mararka qaar waxa jira calaamadaha munaafiqiinta lagu garto waxa kamid ah sida Nabiga Kaleey Salaam sheegay ida khasama fajar marka uu rabo inuu kula moormo wuxuu raadinayaa inuu ka adkaado ama inuu kugu xadgudbo laakiin mar raadinayo inuu hanuun helo ama wadada saxda ah uu soo aado sida darteed waa laga magan galaa inay naftaadu noqoto mid adduunyadana muran ku galisa
aakhirana kugu noqoto in iyadu laftigeeda kugu marqaati furto ama ayba noqoto midii kugu doodaysay yowma ta'tii kullu nafsin tujaadilu can nafsiha inta adduunyada joogtana waa laga cararaa inaad noqoto wa kaana alinsaanu akthara shayin jadala qof muran u joog ah oo adduunyada muran la taagan waa sifooyinka nafta ay leedahay mid ka mid ah kuwa laga cararana ay ka mid tahay waxaa kaloo naftaada lagala cararaa inaad noqotid nooca kale ee qur-aanku sheegay la yidhaahdo annafsu almafrita nafta iyadoo isku xadgudubta ee iyadoo dulmiga isku samaysa ama dadka ku xadgudubta oo marka dambe aakhire markaad tagto ku gaarsiinayso inaad ka shalayso an taquula nafsun ya xasrata calaa maa faradtu fii janbi illaah marka qofka naftiisu haddiiba ay gaarsiinayso inuu marka hore dayaco marka hore meel cidlaa isdhigo marka dambena uu ka shalaayo waxay kuu keeni doontaa inaad noqotid naf ayadoo isku xadgudubtay oo dhibaato isku samaysay xadgudubkeedaasna marka dambe uu gaarsiiyo inay iska shalayso oo iyadu ay iscanaanato waxaa kaloo jirta nafta la ammaanay ee wanaagsan ee la yidhaahdo annafsu almutma'ina oo ah naf xasiloon oo degan oo ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada markay joogtayna uu deganaan siiyey ruuxdeeda marka lasii qaadanayo oo ay aakhire u gudbayso oo naftii ruuxdii iyo jirkii la kala jarayana waxay u gudbaysaa inay tahay naf degan oo qabow oo xasiloon yaa ayatuha annafsu almutma'ina irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya oo loola jeeda naftan marka horeba ilaahay baa keenay adduunyada keenay markuu adduunyada keenayna wuxuu u keenay inuu ku dulbeero jirkan uu ku dulbeero laakiin marka la ceshanaya waxaa la ceshanayaa iyadoo xasilan oo degan oo raalli iska ah oo ku qanacsan inay intay nooleydna wax wanaagsan kasoo shaqaysa adduunyada rajana ka qabta aakhira hadday tagto inay si wanaagsan u noolaan doonto waana darajooyinka ugu sarreeya mid ka mid oo ah in naftaadu ay noqoto almutma'ina mid mar walba iska xasiloon oo adduunyada ku xasiloon sida darteed culamada muslimiinta waxay yidhaahdaan cibaadadu nafsiyan waa wax xasilooni keena waana wax qofku raalli ku yahay oo naftiisu ay ku degan tahay macsiduna waa wax fudayd iyo deganaan la-aan iyo wareer keena naftuna aysan marka dambe raalli ka ahayn sidaa darteed waxaa ilaahay la weydiistaa mar walba inaad noqoto dadka la yidhi naftoodu waa naf xasiloon oo degan taa waxay ku keenaysaa marka caafimaadkaagu inuu deganaado noloshaada deganaato bulshada dhexdeedana qof degan oo qiimo ku dhex leh inaad ku noqoto sifooyinka kale oo ay naftu leedahay waxaa weeye nafta la yidhaahdo almaakira waa midda wax shirqoosha ee ka shaqaysa shirqool oo mar walba samaysa inay wax un isku dabagediso wax un ay shirqoosho dadka qaarkood culimmada muslimiinta ah iyo kuwa cilmu nafsiga ka shaqeeya waxay yidhaahdaan sifada makrigu ma ahan sifo ayada xun mana ahan sifo ayadu ay fiican tahay yacni lama oran karo qofkaanu makriga waxa la yidhaahdo waa wax xun ama makriga waxa la yidhaahdo waa wax fiican labadaba lama dhihi kara yidhaahdeen waxaa laga fiirinayaa bay dhaheen makrigu waa aalad la isticmaalo aaladaas marka ma waxa u isticmaalaysaa wax wanaagsan mise waxa u isticmaalaysaa wax xun saa darteed waxa la caayo waxaa waaye almakru sayi shirqoolka xun oo aad reerkaaga ama ehelkaaga ama qofka wanaagga kaa filinaya aad ku samaysaba inta badan aad iyo aad loo maagay aadna loo qabiixiyey wax fool xun laga dhigay waata ilaahay uu leeyahay walaa yaxiiqu almakru sayi'u ilaa biahli laakiin haddii aad rabtid inaad samayso makri aad wax ku badbaadinayso oo aad wax ku hagaajinayso ama aad wax ku anfacayso yani maalan muslimiin iyo waxaa isdiriraya cadowgoodii waxaad keenaysaa qorshe iyo shax aad ku shirqoolayso ciddii aad isleynaysa inuu cadowga kugu ahayd laakiin la rabo inaad ku gaarto guul aad rabto inaad muslimiinta ama dadkii aad la jirtay aad ugu keento sidaa darteed markaad wadankaaga ku anfacayso ummadaada ku anfacayso waxaa lagaa rabaa inay noqoto wax aanan ahelkaaga iyo dadka adiga ehelka ku ah aadan u isticmaalaynin ee aad u isticmaalayso waxa aad wax ku badbaadinayso sidaa darteed culimmada psychologiga qaarkood waxay yidhaahdeen qof maakira haddaad wanaag kula dhaqanto oo aad si fiican oo ixtiraam leh oo qadarin kula dhaqanto wuxuu u qaadanayaa weligiis iyo allihiis inuu yahay qof guulaystay laakiin qofka makriga ka shaqeeya waxaa la rabaa inaad adigana makrigiisii kula dhaqantid oo aad sida uu sameeyey samayso laakiin waxaa loo xiraa laba shardi shardiga koowaad waxaa weeye waxa aad samaynayso waa inay noqdaan wax u adeegaya dan guud midda labaadna waxaa la rabaa inay noqdaan wax keenaya in aydan ka baxaynin ballamo idinka dhexeeya sidaa darteed dadka qaar ba waxay isku qaldaan ballanta qofka aad la gasho inaad ilaaliso waad ku khasban tahay waana waajib dhaqanka dhagarta la yidhaahdo ee qofka inaad dhagarto oo aad marka hore ballanta kusoo khiyaantana sharci ahaanna waa xaaraan dhaqan ahaanna waa mamnuuc
laakiin waxaa loola jeeda waxaa weeye kasifada la dhaho makriga ama shirqoolka ama af soomaaliga ereyga shirqool baa ugu dhow. waa sifo la adeegsado, wax fiicanna loo samaysan karo, wax wanaagsanna loo samaysan karo. tan ugu xunna waa midda aad ku samayso cidda kaa filanaysa inay wanaag kaa sugaysay. yani maalan makriga meelaha mamnuuca ka yahay waxaa ka mid ah qof baa wuxuu kaa rajaynayaa inay wanaag idinka dhexeeyaan, waxaa idinka dhexaysa wada shaqayn, waxaa idinka dhexaysa shirkad, waxbaad shirka ku tihiin. wax kasta oo aad kala hadlayso wuxuu u haystaa inay lilaahi kaa tahay oo ay daacad kaa tahay. sidaa darteed mucaamaladaas mucaamalo aad shirqool dhexgelin karta ma ahan, sababtoo ah qofkaas wuu ku aaminay, kalsooni buu ku siiyey. kalsoonida uu ku siiyey inaad ku xadgudubto waxay noqonaysaa khiyaano bay noqonaysaa. sidaa darteed ilaahay subxaana watacaala makriga markuu ka hadlayo wuxuu yidhaahdaa mararka qaar wamakaruu wamakar allaahu wallaahu khayru lmaakiriin, oo loola jeedo ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa wanaagsan ee muslimiinta ah khayr ka shaqaynaya si uu u anfaco. mararka qaar wuxuu u sameeyaa qorshayaal iyo fikrado ay ku badbaadayaan oo ka karti sarreysa ama ka miisaan fiican ama ka shax wanaagsan midda ay ayagu dejisteen oo ay samaysteen. sidaa darteed haddii aad rabto inaad samayso makri, shuruudihii aan soo sheegnay waa inaad mar walba maskaxda ku haysaa, ehelkaaga iyo dadka kaa filanayana aadan ku samaynin. nin ka mid a reer Quraysh baa wuxuu arkay Abulahab oo keligii meel jooga oo qoyskiisii oo reer Bani Hashim ahaa dhammaantoodna inta la cunaqabateeyey, maka banaankeeda la dejiyey, aad loo rafaadiyey. markaasuu wuxuu arkay shirkii oo loogu tashanayay reer Bani Hashim, Abulahab oo fadhiya, oo Abulahabna waa taqaanaan waa nabiga calayhi salaam adeerkiis weeye, laakiin ra'yi ahaan ka soo horjeeda. markuu Abulahab dhaqaaqayba wuxuu yidhi ninkaanu qorshaha uu nala dejinayo waanu baahnayn, waanu ku guuleysanay, reer Bani Hashimna waa isaga celinay, waa isaga qabanay qorshahan iyo shaxdan uu nala dejiyey, laakiin maanan ku farxayn inuu Abulahab aniga ehelkayga yahay oo aniga uu qaraabo ila yahay. laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inuu ehelkiisa ila shurqoolayo oo ila dhibaateynayo oo qorshihii uu ii keenayo, laakiin ma aha buu dhahay in ehel laga dhigto oo qaraabo laga dhigto. yani waxaa loola jeedaa meel ay ku fiican tahay makriga waa inay jirtaa, meel aysan ku habboonayna waa inay jirtaa. xayndaabka aad ku dhex jirayso oo aad ku kala saaraysana waa inaad taqaanaa. waxaa kaloo jirta midda taa u dhow ah annafsi almakiida, yacni in aad adigaba u samaysan tahay dadka inaad shar ku dhibaatayso oo aad shirqool u dhigto oo aad dhibaato ku samaysato. saa darteed inta badan waa la diidaa, waana iyadana badaxay ku jirtaa waxyaabaha aan bannaanayn. innahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan famahil ilkaafiriina amhilhum ruwayda. sidaa darteed qofka inaad sidiisaba marka hore dhagar usii diyaariso oo aad qorsho usii diyaariso oo aad ku dulminayso ama xaq uu leeyahay aad ku dhaafsiinayso lama ogola. waxaa kaloo nafta wanaagsan lagu ammaanaa in nafta la yidhaahdo annafs almustabsira, waa nafta indhergaradka ah ee wax garanaysa, ee xaaladda ay ku nooshahay qiyaas ka haysata, xaaladda ku habboon qiyaas ka haysata, khalqiga ilaahay uumay ee koonka ilaahay uu uumayna ka haysata indhergarad iyo fikir iyo si qoto dheer u fiirinaysa waxyaabaha ilaahay uu sameeyey. wa fii anfusikum afalaa tubsiruun bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira. yani waxaa la rabaa inaad noqoto naf indhergarad ah oo xaaladda koonka fiirin kara, naftiisa fiirin kara, geela fiirin kara, badda fiirin kara, khalqiga ilaahay siduu u kala bedelay luqadooda iyo dhaqankooda iyo habeen iyo maalin uu isu dhaafsiiyey fiirin kara waa inaad noqoto. nafafta aan wanaagsanayn waxaa ka mid ah nafta la yidhaahdo doqonta, safiih, annafs safiih, yani naf doqon ah oo aan garanaynin waxa ay habboon tahay inay samayso, aan garanaynin xaaladda ay ku dhex jirto waxa ugu habboon, aan garanaynin ficilkeeda maxaa u wanaagsan, qowlkeeda maxaa u wanaagsan, oraah ahaan maxaa u wanaagsan, ama labadaba u wanaagsan. waad aragtay qof aad taqaano ama qof aad garanayso oon si un ula noolaatay oo markuu hadlayo hadal xun ku hadla, ficil markuu sameynaya ficil xun sameeya, oo dadka markay u cudurdaarayaan ay oranayaan wallaahi waa dabeecadiisa oo sidaas uu isaga hadlaa ama sidaasayba dhaqankiisa tahay, xumaan ulama jeedo. yani Soomaalidu mararka qaar waxaa laga yaabaa inay ammaan ula jeedaan ama cudurdaar ay ku raadinayaan, laakiin nafta safiiha la yidhaahdo ee doqonta naf wanaagsan ma ahan. qofka saxda waxaa la rabaa waxa qowlkaaga, hadalka afkaaga ka soo baxay inuu ku xisaabsan yahay, ficilka aad samaynayso uu ku xisaabsan yahay. haddii aad isku mar wax samaynayso ama ficil iyo hadal wada sameynaysana waa inay ku xisaabsan yihiin. sida darteed qofka naftiisa doqomaysanaya ama ficilada doqonka ku dhaqmaya lama ammaano, lamana jeclo. waman yarghabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsah. waayo qofku wuxuu gaarayaa inuu xataa dantiisa aqoon waayo, waxay gaarsiinaysaa inuusan ilaahay aaminin, waxay gaarsiinaysaa inuusan diinta ku dhaqmin, waxay gaarsiinaysaa inuusan waxa saxda ah uusan qaadanin oo uusan ku dhaqmin.
heerka kasii xuntaa waxaa weeye nafta la yidhaahdo nafta gardarrada u samaysan oo dulmiga jecel, nafsi dhaalima. waxayba jeceshahay inay wax dulmiso, waxay jeceshahay xuduudeeda inay dhaafto, waxay jeceshahay inay mar walba waxa loo diiday ay samayso, mararka qaarna ay nafteeda ku xadgudubto ama ay khalqiga ilaahay uumi ku xadgudubto ama bulshada oo dhanba ay xadgudub ku samayso. taana marka dambe way shalaysaa oo nolosheedana shalay baa u dambeeya. walow ana likulli nafsin dalamat ma fi lardi laftadat bih. macni waxaa laga doonayaa qofka muslimka in waxyaabaha iska ilaalinaya inay tahay in naftiisu ay noqoto naf gardarrada jecel oo dulmiga jecel oo dadku inay isdulmiyaan xataa mararka qaar ku farxaysa. waana waxyaabaha ilaahay laga magangalo ee aan wanaagsanayn. waxaa jirta naf la yidhaahdo nafta mar walba waxa macaan kale iska jeclaata, mar walba waxa fiican iska aada, mar walbana iska dhaanraac iska ah, nafsul muraawida. yacni wax unbay maanta iska doonanaysaa, damacaa maamula. haddii shahwo u baahato shahwadii iska aadi, haddii hadal xun u baahato hadalka xun bay iska aadi. mar walba wixii maskaxdeeda kusoo dhaca unbay hore ka aadaysaa. waraawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsi. yacni waa wax aan wanaagsanayn wiilkii gurigaaga joogay ee maxaan ku irahdaa qurux inta ka fiiriso haweeneydaas ay rabtay ninkeeda inay khiyaanto, nebi yuusufna ay dembi geliso. yacni wax xun weeye qofku in wixii kusoo dhacaba uu hore ka samayn karo oo damac raac uu noqdo oo damaciisa uu iska maamulo. waxaa kaloo la jeclay naftu inay fulay noqoto oo naf maanta oo dhan shakisan oo waswaasan oo cabsanaysa oo baqaysa inay noqoto lama rabo. waxaa la rabaa naftu inay noqoto naf waxa ay ku fikirayso ka fiirsata, haddii ay ku qanacdana samaysa. laakiin cabsida ku dhisan, malaha ku dhisan, shakiga ku dhisan lama jeclo. fawjasa fii nafsihi khiifatan muusa. yani naftaada waxaa la rabaa inaad cabsida badan iyo walwalka farada badan aad ka ilaaliso ee ku dhisan qiyaasta malaha ah ee aan ku dhisnayn xog sax ah ama macluumaad saxa aan ku dhisnayn. waxyaabaha aanan la jeclayn nafta waxaa ka mid a nafta la yidhaahdo nafta bakhiilka ah ee xoolaha jecel ee inay wax ka baxaan diidan, ee waxa ay bixinaysa dhibsata, ee dadka inay wax siisa dhibsata, mararka qaar gaarsiisan xataa inay wax kasta oo wanaagsan inay wax ku bixiso diida, oo gacanteedu ay adag tahay oo gacan adag ay noqotay. lamana jecla. ilaahayna subxaana wa tacaala ma amaanin. waman yabkhal fa inamaa yabkhalu can nafsi. xoolahan aad diidayso oo aad inaad bixiso diidayso wax aad aduu naftaada u diiday waaye. sababto haddaad bixiso ajir baa ka heli lahayd, khayr baa ka heli lahayd, sumcad wanaagsan baad ummadda uga dhex heli lahayd. waxaa kaloo ayadana lamida nafta la yidhaahdo annafsi shaxiixa oo meesha kasii daran ah oo bukhliga waxaa kasii dambeeya qofka inuuba sii jeclaado yani xoolo jaceylkiisa inuu gaaro. waa cudur markii bukhliga laftigiisa uu kugu sii noqdo cudur uu kugu sii noqdo. culimmada qaar baa waxay yidhahdaan bukhligu waxaa weeye qofka jecel inaysan waxba ka bixin. shaxiixuna waa qofka dad waxayse siinaya dhibsanaya. laba qof waxayse siinaysa hadduu arkayo waxaa laga yaabaa inuu isdhaho warkaa muxuu xoolihiisa ugu cayaaraya. sida darteed waxyaabaha ilaahay laga magan galo oo ilaahay subxaana wa tacaala la weydiiso inuusan kugu ridin bay ka mid tahay nafta bakhaylka ah iyo nafta shaxiixa ah. waxaa kaloo la necab yahay nafta la yidhaahdo annafsa naakitha, nafta jecelba ama uba samaysanba ballanta markay gelaysa inay kasii baxayso usii qorshaysan tahay, ama ballanta markay gelaysaba maskaxdeeda ku jirto inay wax sirayso, daacaddu ay ku yar tahay, ballan fulintu ay ku yar tahay. waana dhaqamada uu qur-aanka aad iyo aad u ceebeeyey bay ka mid tahay. waman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsi, waman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsi. sidaa darteed naftaanu haddii ay ku barto ballanfuryada oo waxyaabaha aadka iyo aad ceebta u ah qofkana sharafka iyo maamuuska iyo suunada iyo qiimaha uu bulshada ku dhex lahaa ka tirtirayo bay ka mid tahay. waxaa la ammaanaa nafta la yidhaahdo annafsu lmu'thira, waa nafta wax deeqda ee marka koowaad waxay haysata raalli ku ah waxa dadka haystana uusan damac uga jirin. yani 3 sifay leedahay naftan la yidhaahdo annafsu lmu'thira. waa nafta wax quurta. marka koowaad waxa ay haysatay raalli ku tahay. marka labaad dadka waxay haystaan damac ugama jiro. marka saddexaadna waxay awood u leedahay waxa ugu yar oo ay haysato u soo haray inay bixiso. waana darajooyinka ugu sarreeya oo marka la joogo wax bixinta la gaaro. wayuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa. yani waxaa la rabaa waxa adiga mararka qaar u baahan tahay inaad bixin karto. dadka yaqaana yani farqiga u dhexeeya deeqsinimada iyo iithaarka waxay yidhaahdaan deeqsinimadu waa waxa aad ka maaranto inaad bixiso, laakiin iithaarku waxa weeyaan waxa aad ka maarmin inaad qoorto. yani waxa aadan adiguba ka maarmaynin inaad sii bixin karto oo aad gaarsiin karto oo dhihi karto maanta intaasoo cuntaa baan haystaa ama 100 shilin baa igu haray laakiin waan quuray waan bixiyey. laakiin deeqsinimadu waxay dhaheen waa waxa aad ka maaranto oo baahi degdeg aadan u qabin inaad bixin karto.
nafta kaloo aadka loo ammaanay waa nafta la yidhaahdo annafs asawiya, nafta wanaagsan ee toosan ee isku hagaagsan ee kala garanaysa waxa xun iyo waxa dhowrsanaanta ah. wa nafsin wamaa sawaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha. waa nafta cadaaladda jecel, sinaanta jecel, miisaanka jecel, mar walba garanaysa waxa toosan ee ku habboon iyo waxa aan toosnayn ee aan naf ahaan iyo qof ahaan ku habboonayn. nafta kale waxaa la yidhaahdaa waa nafta la yidhaahdo allawaama. waa nafta mar walba annafs allawaama. falaa uqsimu binnafsi allawaama, yacni waa nafta iscanaananaysa, waxayna isku canaananaysaa waxay og tahay inay khayr ahayd baysan samaynin, hadhowba waxay leedahay wallaahi waxaas khayr bay ahaayeen, maxaan u samayn waaye. waa meesha laga dhiirigelinayo nafta in la baro inay naftu ahaato naf go-aanka ay gaarto ku dhaqmi karta, khayr hadday damacdana isla markiiba u dhaqaaqi karta. nafta la ammaanay waa nafta la yidhaahdo nafta caadilka ah ee mar walba cadaaladda jecel, oo bulshada oo dhan waxa ilaahay subxaana wa tacaala amray iyaduna qayb ka ah. in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan. yacni saa darteed waxaa la rabaa inaad barto naftaadu inay mar walba jeceshahay cadaaladda oo ay ku roonaanayso inay cadaaladda ka shaqayso. sidaa darteed waxaa la rabaa diinta islaamka marka la ilaalinayo oo la waardiyeynayo, waxyaabaha lagu waardiyey waxaa ka mid a kow in aadu naftaada taqaano ciladaha ay leedahay, oo intaasoo nooc oo ciladaha oo naftu leedahay intaad daraasayso, naftaadana daraasayso, inaad ka ilaaliso oo aad ka waardiyeyso. laba, waxaa lagaa rabaa inaad barto naftaada waxa wanaagsan haddaysan marka horeba u dhalanin oo dabeecad ahaan u lahayn, inaad ku qasabto inay qeybaha wanaagsanoo nafta aan soo sheegnay inay yeelato. waayo diinta ilaahay subxaana wa tacaala sida sheekh alislaam ibnu timiya uu leeyahay waxay u baahan tahay kitaab hanuunsan oo ku hanuuninaya oo adiga ku ilaalinaya oo jidka toosan kugu aadinayo, kama maarmayso, wayna u baahan tahay. waxay kaloo u baahan tahay seeftii u gargaari lahayd ee kitaabkaas nolosha kusoo leexin lahayd ee quwad iyo xoog u noqon lahayd. wakafaa birabbika haadiyan wanasiira. wallahu tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxidaad wada taqaniini isaga waduudahan tashiga lala wadaagayne, isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne. waxba kama qarsono qalbigu wahan hadduu yeesho, wixii weliba wow waadax iyo waasac maalinaahi. alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimane.